dowladda hoose ee degmada Oodweyne ayaa maanta soo bandhigtay waxyaabihii uga qabsoomay mashruuca dowladaha hoose ee GPLG-ga kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda KMC ayaa madaxda dowladda hoose halkaasi bulshadu su'aalo ku weydiisay waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay isla markaana ujeedada kulankan ka warramay mas'uuliyiin ka socotay hay'adda KMC maayirka magaalada Oodweyne odayaasha xubnaha golaha deegaanka odayaasha iyo waxgaradka dhammaan dadweynaha sharafta leh ee reer Oodweyne ee ajiibay yeermada kulankan dadweyne ee markaasi ay madaxda iyo maamulka deegaanka iyo waliba dadweynuhu isku xogwarsanayaan marlabaadka way ka mahadcelinayaan kasoo qaybgalkiina si toos ah waxaan u furan doonaa shirkeennan duqa degmada Oodweyne ayaa isaguna halkaasi bulshada uga jeediyay waxyaabihii u qabsoomay waxa uu sidoo kale maayirka iyo mas'uuliyiinta halkaasi ku sugnaa ay bulshada uga jawaabeen su'aalahaasi degmada Oodweyne waxay ka mid tahay degmooyinka ka shaqeeya mashruucan GPLG-ga oo runtii faa'iido weyn iyo waxtar weyn iyo waxqabad ballaaran runtii uu ka muuqdo qofka bulshada fayowna ay arkayaan waxaan muddadan joognay 7 sano dowladda hoose u qabsoomay 8 marshuur oo aan ka hirgelinay marjuuca bahwadaagta GPLG-ga waxay degmadani la tartantaa 7 degmo oo kale marshuucan ka mid ah oo ay ka mid tahay magaalooyinka ugu dhaqaalaha iyo qaaraanka badan ee Soomaaliland kasoo bilow Awdal degmada Boorama degmada Gabiiley degmada Hargeysa degmada Barbara degmada Burco iyo degmada Oodweyne degmooyinkan magac dhaabay ama sheegay inay dhaqaalahaan iyo dadahaan iyo baabulaawislahaanba ay ka badan yihiin bulshada ku dhaqan magaalada Oodweyne annagoo taagtayada iyo tamartayada annagoo caqliga iyaga iyo fikirka iyaga kaashanayna annagoo ka helayna qaacan shacabweynaha reer Oodweyne waxaan runtii meel gaarsiinay inaan mar kaliya Oodweyne ay noqoto degmooyinka ugu horeeya modelka GPLG-ga taasoo runtii ay u ogsoon yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha xildhibaanada ay garwaaqsadeen inay tahay sidii maalintii dhawata madaxweyne ku-xigeenku ugu hambaliyay golaha deegaanka iyo shaqaalaweynaha dowladda hoose inay ka midho dhaliyeen gaarsiiyeen tuulooyinka fogfog iyo tuulooyinka dhowdhow iyo magaalada gudaheedaba aan ka muujinay mashaariicdiina loogu dhiibay annagoo si cadaalada iyo sinaana u gaarsiinay bari iyo galbeed nabadgelyaanu qabnaa isma qabqabsano isma qabyaaladayno haddii xumayo waa qaar nasiib badanoo habeenkay noo qabteen baa ilaahay irsiq inoo fura gudoomiyaha golaha deegaanka waa gudoomiye wax qabtay waa gudoomiye halkii uu ka qaaday maanta aynu arkayno iyo halka uu gaarsiiyay aynu arkayno qofku hadduu mucaaridnimo iska soo taago war mucaaridnimada annaga sheegno wixii dhaliilay waa la sheegaya xukuumaddaanu sheegaynaa waa annaga taaban lahayn haddaan wadanaynahay waxaanu aragnay inaanay wixii wax qabada ee jira in la taageero wey mar uun loo arki waayay ama bulshada reer Oodweyne u arki waayeen iyadoo oo saddexda qof ee fulinta ka ah dowladda hoose uu ka mid yahay maayarka iyo ku-xigeenka iyo xogayaha iyagoo mar uun isku maalin ka soo qayb galay shaqada maadaama ay dadku la dhibtoodaan shaambadda iyo shaqada ay qaranka u hayaan hal maalin lama arki karo Oodweyne iyadoo oo xogayaha iyo maayarka iyo ku-xigeenku ay wada joogaan dowladda hoose waa talabaad magaalada Tombolayn bay leedahay dowladda hoose waxyaabaha ka shaqeysa waxa ka ah safety community waxa la badbaadada bulshada in dhismaha ay soo galaan wadooyinka waa halis waxaana mas'uulka golaha deegaanka waan ogsoonay waan ka garaabaya way yartay laakiin ma jirtaan ma ahe waan ka garaabayaa saddexdayadoo wada fadhiya saddexda xafiis inaanay badnayn laakiin dub insha Allah waan dub eegis baan ku samayn doonaa taas waa qodobka labaad dadku waa iska dayar hadda laamiyadii noo bilaameen meheradaha waan ognay inay wadada ku jiraan laakiin waxaan la baxnaanina ilaahay oo inta horumar kala noo soo kordhiyo jiingadaha intay meel uga guurayaan
waanu yara deynaynaayo laakiin iyaguna kuraasida waxaan ballan qaadaynaa inay xagga wadada mooye xagga kale insha allah ay dhigaan. Muuse Salebaan Maxamed, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Oodweyn.